kulanti wanaagsan daawadayaasha qiimaha leh waa mar kale iyo falanqaynta wararka dunida aad kala socon jirteen Maamuus TV. Qodobada aad maanta ama caawaba aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah Mareykanka oo ka baxay heshiiskii iibka diyaaradda casriga ee F-35 cunaqabatayn cusub oo lagu soo rogay Iiraan. Ciidamada gaarka ah ee Suudaan ayaa xidhay labo ka mid ah hogaamiyaasha ugu cadcad kooxaha mucaaradka kadib markii ay shalay la kulmeen ra'iisul wasaaraha Itoobiya. qodobadaas iyo kuwa kale xiiso leh ayaa daawadayaasha qiimaha leh ku daawan doontaan. dabcan waa maalinimo Sabti ah 8 bisha 6 2019. daawadayaal ku bilaabo Mareykanka oo ka baxay heshiiskii iibka diyaaradda casriga ee F-35. waaxda difaaca ee Mareykanka ee loo yaqaano Pentagon ayaa Turkiga ku wargeliyay inay kansalayaan heshiiska iibka diyaaradda casriga ee F-35 kadib qorshaha Turkiga uu ku doonayay inuu ku iibsado gantaalaha difaaca Ruushka ee S-400. warqad Pentagon ay u direen Turkiga ayaa lagu sheegay in duuliyaasha Mareykanka u dhashay ee diyaaradda F-35 ee ku sugan Turkiga si tababar ay u siiyaan duuliyaasha Turkiga ay ka soo bixi doonaan Turkiga 31 Juulaay. sidoo kale duuliyaasha Turkiga ee tababarka u joogay Mareykanka iyaguna ka soo bixi doonaan isla waqtigaasi. sidoo kale Pentagon waxay sheegeen inaysan jiri doonin tababaro cusub oo la siin doono duuliyaasha Turkiga iyadoona duuliye Turkiga ee ku sugnaa Mareykanka ay dib ugu laaban doonaan wadankooda. sidoo kale Pentagon waxay sheegeen in Turkigu wali uu haysto fursad uu ku iibsan karo diyaaradda F-35 waa haddii uu ka laabto iibka gantaalaha difaaca Ruushka ee S-400. Mareykanka ayaa aad uga walwalsan in Turkigu wada haystaan ama wada yeeshaan diyaaradda casriga ah ee F-35 iyo gantaalada difaaca ee S-400 waxayna ka baqayeen in la helo siraha ku duugan diyaaradda casriga ah ee F-35. hadalkan ayaa ka soo beegmaya iyadoo Ruushka ay sheegtay in gantaalaha difaaca ee S-400 Turkiga uu heli doono dhawaan. si kastaba ha ahaatee haddii Mareykanku ka baxo heshiiskaas iibka diyaaradda F-35 waxay dhaawici doontaa xiriirka Mareykanka iyo Turkiga waana labada wadan ee ugu ciidanka badan gaashaanbuurta NATO. Turkigu wuxuu qorsheynayay inuu soo iibsado 100 ka mid ah diyaaradda F-35 taas oo Mareykanku ka heli lahaa adduun lacageed oo gaaraya $9 bilyan oo doolarka Mareykanka ah. xiriirka Mareykanka iyo Iiraan ayaa ah mid aan wanaagsanayn waxayna isku qabteen arrimo badan oo ay ka mid ahaayeen dagaalka Syria cunaqabataynta Iiraan iyo arrinta hadda taagan ee iibka gantaalaha difaaca ee Ruushka ay sameeyso S-400. cunaqabatayn cusub oo lagu soo rogay Iiraan. Mareykanka ayaa ku soo rogay Iiraan oo cunaqabatayn cusub gaar ahaan qaybta warshadaha shidaalka iyadoo Iiraan ay ka diidayso in dib loogu noqdo heshiiska nukliyeerka ee 2015 ayaa Mareykanka iyo France waxay doonayaan in dib loogu noqdo heshiiskaas sababtoo ah bay yiraahdeen ma damaanad qaadayo xasiloonida bariga dhexe. waxayna sidoo kale sheegeen in la yareeyo haysashada gantaalada balastikada waa gantaalada ridada dheer ee Iiraan ay haysto iyo maleeshiyeedka ka jooga Syria iyadoona weli Iiraan ay ku taagan tahay mowqifkeeda inaan waxba laga bedelin heshiiskii nukliyeerka ee 2015 kaas oo uu saxiixay madaxweynihii ka horreeyay Trump ee Barack Obama. Trump ayaa ka baxay heshiiska sanadkii hore wuxuuna ku dooday in heshiiskaas uu dhinac u raran yahay oo Iiraan u danaynayo. ciidamada gaarka ee Suudaan ayaa xidhay labo ka mid ah hogaamiyaasha ugu cadcad kooxaha mucaaradka kadib markii ay shalay la kulmeen ra'iisul wasaaraha Itoobiya. ra'iisul wasaaraha Itoobiya oo loo arko shakhsi firfircoon oo ku fiican dhexdhexaadinta ayaa shalay booqday Suudaan wuxuuna la kulmay dhinacyada isku haya waa mucaaradka iyo golaha ku-meel gaarka ee militariga kadib markii ay isku dhacyo mudaharaadyaasha iyo ciidamada ammaanka. wasaaraha Itoobiya ayaa la kulmay Maxamed Ismaad oo ah hogaamiye siyaasadeed iyo Ismaaciil Jalab oo asna ah hogaamiyaha jabhadda SPLMN oo loo soo gaabiyay Sudanese People Liberation Movement. lama garan karo halka uu ku dambeyn doono mustaqbalka Suudaan waxaana weli socda dadaalo caalami iyo mid goboleed oo lagu doonayo in la qaboojiyo xiisadaasi.